bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta ku xiran janalka toosana technical soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo 5 qaab oo aad u ilaalin karto facebookaaga run ahaantii su-aalaha laga soo weydiiyey facebook aad u tiro badan yihiin maalin walbo 10 qof ilaa iyo 20 qof wax gaara ayaa ila soo xiriira ayagoo ka cabanaya facebook bis marka su-aalahoodu waxay isugu jiraan facebook la jabsaday iyo facebook passwordkiisa la iloobay iyo facebook kada marka waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago 5 qodob oo aan isdhahay muhiim ay u tahay qof walba oo isticmaalaya facebook 5 qodob marka soo dhawaada qodobka ugu horeeyo 5 qodob waxay tahay facebookaaga dad kale hala wadaagin facebookaaga passwordkiisa qof kale hala wadaagin yani qofka si kasta kugu soo galo wuxuu raba ahaado qofka waxa laga yaabaa in dana qaar iska keento hadii maanta facebook passwordkiisa aad wadaagto birtu waxa laga yaabaa qofka inaad isku dhacdo oo si kale oo kaga faa'iideysto oo qaldan marka facebookaaga passwordkiisa please qof kale hala wadaagin qof kale ha siinin please passwordkaaga ilaaliso adaa iska leh qodobka labaad oo aan is leeyahay faa'iido ayuu leeyahay waxay tahay passwordkaaga adkay facebookaaga passwordkiisa adkay facebook kalima password walba oo meel aad ku sameysnayso oo aad barnaamij qaas ah ku ah adkayso passwordkaaga marka passwordka ha ka dhigin magacaaga ha ka dhigin numberkaaga ha ka dhigin magac naaneys aan adiga ku tahay ha ka dhigin gabadhaada ama ciyaal hadaa leedahay wiilkaaga ha ka dhigin familkaaga yani magacyada ama nambarada qaar ka mid ah sababtoo tahay qofka marka rabo inuu ku dhibaateeyo wuxuu rabaa markasta tijaabinayaa dadka ku hareeraysan nambaradooda iyo waxooda ku broweynaya mar walba marka facebookaaga si uu adkaado adkay waxaad ka dhigtaa sheeg tusaale kale number waxaa ka dhigtaa number oo isugu jiro oo ku jiro magac oo ku jiro symbols ama calaamo isugu jir ka dhig si uu facebook u adkaado strong password samee haddii aad leedahay facebook hadaan passwordkiisa soo adkay waa ilooba samee screenshot ka qaado gmailkaaga ku xareyso ama si kale oo u xareyso meel ku qarso hataa waraaq ku qor meel dhigo wax un samee passwordka facebookaaga adkay sababtoo tahay facebook waa isha kaliya ee laga soo weerar karo wax walba laga ogaan karo waay qodobka saddexaad facebookaaga ku xiro two step verification facebook waxay yani shirkadda facebook waxay ku soo dartay qodobka two step verification two step verification marka horaan u sharxay janaalkan cashirkiisa uu ku jiraa balse haddii aan faahfaahin yarkaas iyo two step verification waxaa loo yaqaanaa tusaale qofkan facebook wuxuu ku xirtay password yani password uu leeyahay facebookiisa oo isticmaalaa haddii ay dhacdo in passwordkiisa la helo qofkan oo taleefanka laga kiciyo facebookaaga two step verification kugu xiran yahay waxa lagu soo diraa message lagu soo diraa yani two step verification waxa waaye wuxuu ku dhahaa numberkaaga ma ku xiran mis gmailkaaga haddii numberkaaga uu ku xiran yahay isla markii numberkaaga message lagu soo diraa qofkaas uu kici laakiin uma kicin messagekan ilaa uu ka helo qofkan uma kacay marka message markuu ku soo dhaco isla markii waxaa dareemay facebookaaga emailka laga kiciyaaday messagekaas hadii la helo facebookaaga horaa loo kacsan karaa laakiin messagekaas inta aad gacanta ku haysid qof kicin kara malaha waa isha kaas amar qaadasho kala waay marka two step verification muhiim ayuu ku yahay fadlan ku xiro facebookaaga ku xiro waa qodobka saddexaad kaas qodobka afaraad facebookaaga telefoon kasta ka kicinin telefoon kasta ka kicin telefoonka qabato waa iskana ka kicisay waxa aad u fududaanaysa facebook in lagu isticmaalo sirtaada in la ogaan karo oo messengerka qofka waxa ka markaas qof kasta waxa isdhaxmar yani iska dhaxmar adii qof kale ku sheekaysteen waa la ogaan karaa marka facebookaaga telefoon walba ka kicinin teleefoonkaaga oo kaliya ha ku ekaado teleefoonkaaga ama computerkaaga meel kale ka kicinin haddii kale facebookaaga waxa waaye mar walba halis yani wuxuu ugu jiraa in lagu dhaabaco marka halis ugu jiraa fadlan teleefoonkaaga ka kici oo kaliya ama computerkaaga ama qof aad ku kala soon tahay oo aan isdheeynin waa ku dhibaateyn karaa facebookga telefonkiisa qofkaas bis qodobka shanaad ee ugu dambeeyo aan is leeyahay waa muhiim waxa waaye link kasta oo lagu soo diro oo aad ku dhufato kuna weydiyo facebookgaaga userkiisa iyo passwordkiisa iska dhaaf linki lagu soo diro soo linkiga ku dhufatay linkiga wuxuu ku dhahay facebookgaaga geli kor hoos passwordkaaga geli faraha ka qaata isku gelinin facebookaaga passwordkiisa dad isku gelisid dad qaar waxa jir linkiyada dad wax ku dhaca linkiyada wax ku jabsada jiro haddii marka facebookaaga ay gelis passwordkan ay gelis qofku wuxuu haystaa facebookaaga passwordka saas oo ku haystaa qofka marka ku hacker gareynayo ama wax ka jabsanayo marka fadlan linki kasta oo lagu soo diro ha isaga dhufanin haddii aad ku dhuftid facebook iyo password ku weydiyo faraha ka qaad
haddii kale waxaa halis ugu jirtaa in Facebook laha kin gareeyo. Marka shantan qodob ayaan isdhahay muhiim ayay u tahay akhyaarta, bal se waxaa laga yaabaa in ay jiraan qodobyo kale oo yacni ama qaabab kale oo loo ilaalin karo Facebook. haddii aad hayso qaybta hoose ee commentiga nala wadaag. aad u mahadsantahay. fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, lana wadaag asxaabtaada oo muuqaalka u share garay. haddii aad muuqaalka heshin like saar. inta aan ku kulmayna cashirka xigo waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.